ulublo calankayagiyo dhammaantiin inaad badbaadan wadinidhiga u baxshay baqagiisiyaa loo go'ay qarankeena iyo ulublo calankayagiyo dhammaantiin inaad badbaadan wadanidiga u baxshay mabaqageesiyaal u go'ay
golaha wakiilada dowladda puntland dhammaan xubnaha golaha wakiilada dowladda puntland musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland marti sharafta qaybaheeda kala duwan maanta taariikhdu waa 8 bisha koowaad 2019 kal fadhiga 43aad fadhigiisa 6aad kooramka fadhiya waa 64 maqnaanshuhu waa 2 waxaynu ku furaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaana inoo akhriyaya xildhibaan cabdiqani abshir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم mudana gudoomiye ku soo dhawow sidaad inoogu furtid hawl maalmeedkii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مدحوينها أهنا مشرع إلك مدحوينها دولة بوتلان مدحوينة كحيجينك أهنا مشرع إلك مدحوينة كحيجينك madaxweynihii hore ee dowladda puntland guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada xubnaha golaha wakiilada golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka musharaxiinta garsoorka golaha xukuumadda maamulka gobolka iyo degmada isimada culimaaudiinka EU-da urur goboleedka igaad hay-adda unsom laamaha UN-ka qunsuliyadda Ethiopia ururada bulshada rayidka saxaafadda howlwadeennada golaha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan marti sharafta kale ee ku sugan halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa inoo furmaya shirkii amba doorashadii amba hawshii maanta aynu halkan u joognay waan ka xunnahay xildhibaanada 2 xildhibaan baa maqan waxaan isleenahay wax kale kuma maqnee wuxuun cudurdaara baa jira inay xanuunsanayaanna waanu u malaynaynaa sidaa ajrigeed 2 xildhibaan way maqan yihiin laakiin waynu furanaynaa uma xanibnaan karno hawshana way bilaabanaysaa waxaana inoo daadihin doonaa guddidii hawshan u xilsaarayd waxaan codsanaynaa waxaynu haynaa waa hawl adag waa masiirkii ummaddan waa masiirkii ummaddan waxa weeye waxa weeye waa maalintii la kala baxayey waa maalin inagu weyn oo taariikhiya fadlan arrintaa xurmo iyo sharaf baynu ku lahayn inta doorashadu socoto deganaanshaha iyo huduuga iyo sanqadh-la'aanta aad ah loo ilaaliyo guddida inoo shaqaynayso hawsha waddana waxaa lala fududeeyo waxaan rabnaa insha allahu sida ugu hufan haddii ilaahay ogolaado in hawshani u dhammaato marka waxaan hadda insha allahu aan dib ugu wareejin doonaa guddidii hawsha inoo daadihinaysay insha allahu waxaan rajaynayaa inay ku bilaabaan oo ku soo dhoweeyaan kelmaddii culimada guddidaan ku soo wareejinayaa guddi insha allahu waa xaggiina asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
insha allahu waxaynu siin doonaa culimmadeennii khayrkii qabtay kelmad mana aha wax cusube kelmaddani way jiri jirtay culimmadu way lahaan jirtay saaka qur-aankii baa baarlamaanka culimo yeeshay iyo xufaad allah barakeeyo marka iyagaa qur-aankii inoo akhriyey marka kelmaddii baan waxaan siin doonaa insha allahu sheekh daahir aw cabdi baan kusoo dhaweynaynaa kusoo dhawo sheekh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها برلمانك بإي سلامة دتك مركز ما هو سلامتين وحوي ما أنت هل كان وحن يسوون نمت مدحوينه شنات بطلان وإلهي قدري قضاء وقدرا وإلهي حقي سكقوان in halkan lagu doorto arrintaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo caalim alghayba isagu subxaanah rabbigeen la socdo marka nebigeennii sala allahu calayh wasalam markuu la hadlayo meelaha muraadada waaweyn aayadaha saddexda ah ayuu ku furfuran jiray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قبل كل شيء ربي سبحانه وتعالى وبري أن هرتقينه فأننا حسوسين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وضياش الصومالي دون مركز الشرعية وحيولين جرين ما أنت وادون برينا وآخره مركا دارت الدنبي وحبينه بجرده وبري إلهي بري بكرنك وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني meelan ku dhimanayna warka ma hayno marka sidaa darteed kelimadan halkan ka soo jeedinayo aniga oo hadalka leh iyo idinka dhammaan iyo khaasatan nuwaabta wakiilada baarlamaanka oo fadhiya mansilkii lo odhan jiray ahlul xalli walcaqdi baa kelimada u soo jeedinaya waana wacdi waana waano waana maaragtay tusaale wadakir faina dikraa tanfacu lmu'minuuna buu ilaahi yidhi subxaanahu wa tacaala maxaa marka mu'miniinta loogu koomay dikriga dee iyagu galayaa qofkun mu'minan ahayn wacdigu ma galo mana saameeyo laakiin iyagu galayaa وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين فذكر إن نفعت الذكرى وحا ما أنت هرتين يا الله مصيركي ومطن خاصة بطلان ومدحوينه شنات وهركن لغو دورته وحنا ما ركتي دورنا وبرلمانك مركا مدحوينهاس
waxaan tusaale uga dhigaynaa waxaa lagu dooranaya waxa weeye oo ugu weyn oo rukni ah ama asaasa alquwa waalaamaana sida ilaahay ku sheegay qur'aanka subxaanahu wa tacaala ina khayra man istasarta alqawiyu alamiin inii xafiidun caliim waxyaalaha lagu dooranayo waa inuu madaxweynuhu yahay nin awood leh wax kale hagi kara ummaddan gacanta ku qaban kara lagu tusaale ah laba waa inuu ammaano leeyahay waa inuu ummaddan tana madaxweyne u naxaya u yahay ilaalinaya yahay neefka ku dhinta bari meesha ugu dambaysa isagaa loo qabsanaya oo ugu dhinta macluul ama ohon iska dhaaf dadka madaxweynahaas dadku waa wada fiican yihiin waa ahlu qibla muslimiin baanu nahay ahlu masjid baan nahay laakiin haddana waa la kala horreeyaa oo waa la kala dooranayaa oo ikhtiyaar baa la kala yeelanaya oo qof kasta qof buu dooranayaa marka xildhibaanada qudaad baad tihiin waanigii horeyna yidhi halkan isu soo taagay man waliya alqadaa'a faqad dubixa bikayri sakiinin qadaha ninkii qaadi noqdaa waa qof lagu gowracay midi waxaanay mididu degdeg bay nafta kaaga saari yani waxa weeye waa sakaraad buu noqdayoo naftaa degdeg uga bixi weyday weeye qaadigu waa khatar saddex qaadiga nebiga sal slam waa saddex buu yihi qudaadu mid keliyaa janno ka ah labana waa ahlu naar midka jannada ka ah waxa weeye ninka xaqii gartay markaa xaqii ku xukumay iyo laba kaloo ahlu naar oo midna xaqii galay barbar maray midna uu garanay inuu jahli ku xukumay weeye marka ilaahay waxaan nii baryaynaa kuwa xaqa xukuma inaad tihiin oo xaqa waxeeya saaka halkan aanu joogno waxayna fiirsanaya soomaalidii oo dhan soomaalidii inta haddayna fiirsanaysa intayna maqlaysa waxayna soo maaragtay maanta indhaha inagu haya kalluumaysatada badda hareerteeda deggan oo halkaas lagu ciilay bayna fiirsanaya waxayna soo fiirsanaya dhallinyarada boqolkii ka ah dadka soomaalida ah boqolkii 80 ah danyarta ah ama madaarisaysan waxayna fiirsanaya dhallinyarada intii jaamacaad ka soo baxeen aan shaqo haysanin waxayna soo fiirsanaya hilibleydii caanaleydii wadhatadii agoontii dadkii soo barakacay oo abaaraha ka soo barakacay duufaantii iyo waxaad tidhaahdaba abaarihii waddanka ku dhacay waxayna fiirsanaya oo ina dhegaysanaya soomaali weyn oo u baahan in la ururiyo la isu keeno oo loo soo jeedo iyaa ina fiirsanaya waxayna fiirsanaya dee waddankii oo dhan iyo dantii guud baa maanta ina fiirsanaya marka maanta waxaa loo baahan yahay inaad raadisaan qof awood leh qof maxaan ku idhahdayy amni leh inaad maaragtay ad raadisaan baa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad arrintan uga baqdaan maanta waxaad samaynaysaan qalinkaa aad ku duugaysaan masiir ummadeed weeye masiir ummadeed weeye wixii ka yimaada wixii khayr u qofkaasi sameeye la dooran doono oo murashaxiinta hadda inagu soo jeeda ah wixii maaragtay wanaag ka yimaad wixii dhibee ka yimaad amaam allah idinkaa laynii haystaa waxaad la kulmaysaan oo anigu aan la hadlayaa man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir qofkii rajaynaya rabbi inuu kula kulmo wanaag rabbi waynu la kulmaynaa laysa baynaka wa baynahu tarjumaan qofkii arrintaa marka fiirinaya oo madashan aan joogno madasha ka weyn oo qiyaamaha fiirinaya oo qabriga fiirinaya oo u fiirsanaya sakaraatulmowtka oo u fiirsanaya munkar iyo nakiir qabriga waxay weydiinayaan qofkii intaasoo dhan eegaya cimrigu waa kooban yahay wakhtigu waa kooban yahay waa inuu u saxeexaa qofka uu u arko in ummaddan awood iyo ammaano leh inuu firiyo
وإن أمدا الله هلا قف أخلاق ذو ذا إلالية دين كوغا إلالية قرن نمذو ذا إلالية صومالي نمذو ذا إلالية وطن كإلالية حلو ليش ذا مركز صالح هاي صومالي وحي أباهن تقف السكينة ولا عليا وطلقاته وحي حقوق ليه هنا شاكته وحي سجى ما ركتي لقول ليه هنا فلية الرمال اللي نقرب وي إذا كمركيني تلا ساكا أمام الله قبل كل شيء إلهي بيني جيدا إلهي بيني أركيا دمانتين تتكن دن إنها كلابت إلهي بيني لا صعودا إلهي بيني أركيا لما ميدون بطنقون إنسان مركا إن النقطان الإمام العادل باب كيس قشان إن المقصدين وعدل السماء وناك السماء إلهي يكتس قيامها على منابنا من نور بات كسقنا ريسان إينا عدل كلا نقطان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليهم إلهك أمرك أمدا توليه وكو أتكيه إلهي وكو أتكيه قفك أمدا مدح النقضة أو دمرسيا أو نحريستنا إله نحريسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دي أما وين يقول دعي ما الرئيس ككلية إذا كنا كتشرتان صوتها إذا كان مدحها ساك إذا كان وطن كان مدحك ساك إذا كان تدك كلا هجية لما ميدون بعد نقول إنسان الدعاء إلهي نقول عضو ولا نقول تماشاده أو لحسان عيون الناس هذين كمرتان إيه عيون الناس إن بدن إذا كان يمدي قبر لك الشان لبضا مد بدن قنيسان أروح الندين يد إلهي سبحانه وتعالى
allihiina abuuray dhammaan waxaa loo baahan yahay inaad raadisaan baarlamaankii haddaad tihiin ahlulxalli walcaqdi meeshiisii haddaad fadhidaan inaad ahlulxalli walcaqdi aad noqotaan wax badan inaad xeerisaan waddankan xaaladiisa iyo say tahay inagama qarsoona 4 dowladood baa soo maray qolo kasta meel bay keenaysay qolo kasta waxbay qabanaysay qolo kasta waxbay xallinaysay wax badan isagu dhimayay bay ka tegayeen waxaa loo baahan yahay marka ma aragtay qof halkii ka sii wada oo wax badan xeeriya oo dulqaata oo ninka daciifkana la safta ninka daalimkana ummadda ka qabta iyo loo baahan yahay oo dhiiggeega yacni ilaaliya oo wax kasta u ilaaliya oo hantida u ilaaliya oo u soo jeedo oo u nool intaasaan inu odhan lahaa waxaan odhanayaa madaxweynaha soo socda oo imanayana maanta maalin aad ka taag darantay ma jirto dadkaasaad hor joogtaa nimankaas xildhibaanadaasaad baryaysaa ood leedahay iigu shuba sidaa u taag darrow markaad soo baxdo aan kuugu nimaadno ha lagula taliyo wayna dhegaysataa dadka wayna dhegaysataa weeye se hadda maanta aad u dhegaysanayso oo dhulka u taallo waa inaad berri toolyana ahaataa waa inaad nagu soo bixin adoo libaaxa waa inaad soo baxdaa adoo dadweynahaaga iyo shacabkaaga ka mid ah inaad soo baxdaa weeye allahuma raba jibriila wa mikaa'iila wa israafiila faatira asamaawaati waalardi caalima alghaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fiihi yakhtalifuun اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء آمين ده إله خير لا إله نوصو صار إله خير لا نوصو صار إله الأمة كل بي نوصو صار إله الصومالي سكان نوصو صار إله المساكين تا حريص صو صار إله قف أديك كأبق إله نوصو صار أنا قام أركتي بل وقت غير يجوكنو أنه كل ما يصنو خير إله كلنو maxaa yeelay madaxweynaha ummadda isagaa u hogaaminaya diinkooga iyo akhlaaqdooda wanaagooga sala allahu calaa muxamadin wala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin جزاكم الله خيرا خير الجزاء شيخ دارة وعبدي الله ينوى أنفعه وعبدا ونكسا كل ورينا الله ينقدقه waxaan kaloo xusuusinayaa labadii xildhibaan ee maqnaa way yimaadeen 66kii xubnood ee xubnaha golaha wakiiladu waa dhan yihiin hawshiina waynu bilaabaynaa insha allah wuxuu inoo ilaaliya deganaanshaha iyo xasiloonida hadalku ha inaga yaraado dhaqdhaqaaqu ha yaraado insha allahu waan qof kasta halkiisu xilkas ku yahay guddigaana ku celinaya insha allahu hawshiina wayna bilaabanaysaa kusoo dhawaada guddiga بسم الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها دولة بوتلاند أنا مرشح وترتمي حلك مدحوينها مدحوينك حجينك أنا مرشح وترتمي حلك مدحوينك حجينك دولة بوتلاند قدونك قلها وكيل لذا لما نحبناها قلها وكيل لذا مرشحين تا أتاجن حلك مدحوينها يا مدحوينك حجينك دولة بوتلاند isimada ururada bulshada rayidka wakiilada beesha